بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد waxaan ku soo jiray inaan ka hadlayno alqiyam alislaamiya amba akhlaaqda islaamka xalqadan marka waa insha Allah taala waa xalqadii labaad oo aan kaga hadlayno akhlaaqda islaamka ikhwaani fillah horta waxaad ogaatiin ummad kasta oo adduunyada joogto waxay leedahay qiyam amba value ay leedahay qiyamka ay ummaduhu leeyihiinna ummad kasta waxay maaragtay ay qiyamkeeda iyo akhlaaqdeeda meel bay ka keensataa waxaan shaki ku jirin ummadaha qaarkood inay dhici karto akhlaaqdooda iyo qiyamkoodu inay yihiin waxyaabo ardi ah amba isla falgal ay isla falgaleen dadka muxuu ahaa bini aadanka iyo dhulkii iyo muxuu ahaayey mawaaqifta nolosha inay isla falgaleen marka dadku waxaa laga yaabaa inay iska samaysteen qiyam amba value ayaga u gaar ah oo markaas ay wax xun iyo wax fiican ay ku kala qiyaasayaan innaga shareecadeena islaamku ama diinta islaamku qiyamkeena akhlaaqiga ah inagu sidaas ma aha waxaan dhihi karaa alqiyam alislaamiya amba alakhlaaq alislaamiya waxaan dhihi karaa waa waxyaabaha yani wax qofku halbeegyada uu leeyahay weeye halbeegyadaasoo dabcan ka yimid tasawurka islaamka amba islaamkeenu siduu u arko nolosha siduu u arko islaamkeenu siduu u arko koonka siduu u arko islaamkeenu siduu u arko muxuu ahaayey bini aadanka siduu u arko marka iyo isla falgal ay isla falgaleen mawaaqifta nolosha oo qofka bini aadanka ee fardiga ah iyo bulshadu markay isla falgalaan intaas marka waxay sameynayaan muxuu ahaa waxa loo yaqaan qiyamka ayay sameynayaan amba akhlaaqda qiyamka iyo akhlaaqduna marka micnaheedu marka maxay noqonaysaa waa halbeeg marka fiiri waxna ka reeba waxna kugu dira marka fiiri halbeega marka waxna ka reebaya waxna kugu diraya waxa weeye waa midka marka innaga ka muslimiin haddaan nahay aan u naqaano alqiyam alislaamiya amba alakhlaaq alislaamiya oo halkaas marka ay ka soo baxday waxa loo yaqaana muxuu ahaayey akhlaaqda wanaagsan iyo akhlaaqda xun xumaanta iyo wanaaggu micnaheedu waa tasawurka amba waa fikraddii ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa qur-aanka iyo sunnada nabiga wixii aan ka fahanay iyo innaga muxuu ahaa waaye aragnimadeenna iyo khibradeenna aan u leenahay nolosha markaan aan isku daray ayaa waxaa inoo abuurmay qiyam wax la yidhaahdo islaamiya ayaa noo abuuray alqiyam alislaamiya marka waxaa loo baahan yahay marka qofka oo bini aadanka amba ummadda islaamku in marka ay ka dhigato qiyamkaas iyaga ah oo ilaahiga ah oo rabbaaniga ah oo xag rabbi ka yimid oo maaragtay oo shaamilka ah oon yacni dhammaystiran inaan markaa aan qiyam ka dhigano oon akhlaaq iyo wanaag aan ka dhigano oo waxayna hagaya oo markaan xumaanta aan waxani waa xun yahay markaan leenahay aan ku fiirino qiyamka islaamiga aan ku fiirino waxani waa wanaagsan yahayna aan qiyamka islaamiga ku fiirino macnaha xumaan iyo wanaagba amba salbi iyo ijaabi ama positive iyo negative waxay dooni ha ahaato waxaas inaynu ku fiirino waxaa loo baahan yahay qiyamka islaamiga saan hore usoo sheegnay marka qiyamku marka waxaan shaki ku jirin in fawaa'id badan ay leeyihiin yani qiyamka haddii loo fiiriyo qofka bini aadanka haddii loo fiiriyo fawaa'id badan bay leeyihiin yani qofka bini aadanka ee shaksiga maxaa yeelay qiyamku qofka way dhisayaan waxay ka dhisayaan jawaanib badan bay ka dhisayaan waxay ka dhisayaan masalan tusaale ahaan qofka bini aadanka waxay ka dhisayaan dhinaca psycholojiyada ayay ka dhisayaan oo wuxuu noqonayaa qofka akhlaaq iyo wuxuu wax ku kala saaro leh qofka wuxuu noqonayaa marka niyad ahaan iyo moorale ahaan isu dhammaystiran oo aan walwalaynin oo aan walaacaynin maxaa yeelay asagu qiyam buu leeyahay qiyamkaasu maaragtay ayuu daba socdaa waxay keenaysaa qofka maaragtay shaksiyada qofka oo qiyamka leh amba qofka akhlaaqda leh inuu noqdo qof muxuu ahaaye bulshada dhexdeeda ku leh muxuu ahaay wanaag ku leh maxaa yeelay bulshadu waxay samaynaysaa waxay soo dhaweynaysaa qofka akhlaaqda leh oo markaasaa waxay siinaysaa bulshadu abaalmarin bay siinaysaa qofka akhlaaqda leh oo maxay ku samaynayaan qof kasta oo akhlaaq leh waa la soo dhaweysanayaa qof kasta oo akhlaaq xumo lehna waa la iska fogeynayaa sidaa darteed baa xataa diinteenna islaamku waxay dhiiri gelinaysaa dadka akhlaaqda leh in la soo dhaweeyo idaa jaakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuhu xataa fiiri xataa guurka bulshada waxaa lagu dhiiri gelinayaa qof akhlaaq leh hadduu yimaado in loo guuriyo marka fiiri qofka marka akhlaaqda leh ee alla ka cabsiga leh wuxuu noqonayaa marka qof bulshadii iyada ahayd yacni ka muuqda ayuu noqonayaa marka qofka akhlaaqda wanaagsan waa qof marka wuxuu noqonayaa bulshadiisa ka dhex muuqda
wuxuu noqonayaa qof muxuu ahaay lagu kalsoon yahay wuxuu noqonayaa qof asagu isku kalsoon waxay ka ilaalinaysaa akhlaaqdu qofka inuu dhex galo muxuu ahaa shahawaadka iyo munzaliqaadka maxaa yeelay waxaad ogtihiin nafteena insaaniga ah waxaa inagu xiriira shahawaad badan oo rabitaan badan baa jira marka rabitaanka badan ee aan leenahay haddii qofkii marka shahawaadkaasi ayna jirin wax celinaya amba wax ku celinaya habkiisa iyo sidii loogu talagalay inuu ku guto shahwadiisa waxa weeye wuxuu ku dhacayaa god buu ku dhacayaa marka akhlaaqdu marka sidaa darteed ba waxay tahay shay ina ilaalinaya oo qofka bini aadanka fardiga ah qiimo weyn ayaa ugu fadhidaa marka waxaa loo baahan yahay qof kasta oo muslima marka oo amba qof kasta oo Soomaali ah inuu marka akhlaaqda islaamkana marka waxa weeye ayadana masdarkeedana waxaan dhahnay waa islaamkay ka timid bulshada kasta oo meel degan waxay leedahay akhlaaq u gaar ay leedahay marka sidaa darteed waxa loo baahan yahay ummadda islaamku inay akhlaaqda ilaaliso marka sidaa darteed waxaan dhihi karaa marka akhlaaqdu qiimo weyn bay ugu fadhidaa qofka kaligiisa markuu kaligi yahayna waxa yeelay nolosha oo dhan baa ku soconaysa haddii qofku bulsho haday tahayna akhlaaqdu wax weyn bay ugu fadhidaa maxaa yeelay bulshooyinkana waxaad ogtihiin waxa ka dhaxeeya ummadaha isku haya waa akhlaaqda ummad kasta hadayna akhlaaqdeedu ayna hagaagsaneyn ummadaasi waxay noqonaysaa ummad baabacday bay noqonaysaa maxaa yeelay ummado badan oo la halaagay oo anbiyo badan loo soo diray waxa weeye akhlaaqdi baa ka xumaatay sidii qoom luud oo kaleeta iyo muxuu ahaay qoom shucayb oo miisaanka haleeyaan iyo yani akhlaaqdu waxay ahayd waa waxyaabaha ugu muhiimsan oo anbiyadu ay la yimaadeen ayay ahayd marka bulsho kasta oo akhlaaqdeedu ayna fiicnayn waxa weeye halaag ayaa u dambeynaya maxaa yeelay waa kii ninkii gabayaga dhahay al-umam bil akhlaaqi ma baqiyat fa in dhahabat akhlaaquhum dhahabu yani ummadii akhlaaq bay ummad ku tahay haday akhlaaqdoodu tagtana ayaguna way tagayaan maxaa sidaa darteed ba waxaad arkaysaa ummadeena Soomaaliyeed waxa weeye dhulkeedoo aad u balaaran dhulkeedoo barwaaqo ah inay ku noolaato oo si wanaagsan ay ugu wada noolaato oo ku barwaaqaysanaato wax kale uma diidin waxa u diiday wuxuu yahay akhlaaqdeena oo dhimatay maxaa yeelay qofku markuu qofka walaalkiisa uu ixtiraami waayo oo maalkiisa iyo naftiisa iyo cirdigiisa uu ixtiraami waayo taasi waa akhlaaq xumo weey akhlaaq xumadii marka inaynu isla noolaanayn akhlaaqdii baan ilaalin weynay marka sidaa darteed ba ummadda Soomaaliyeed 30 sano ka badan dhibaato iyo tii ay ugu jirtaa marka waxa loo baahan yahay akhlaaqda inaynu ilaalino marka faa'iido weyn bay ugu fadhidaa akhlaaqdu marka aynu fiirino shakhsi ahaan waynu ugu fadhidaa qofku uu ku noolaanaya bulsho ahaan waynu ku noolaanaynaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh